Kofi Annan oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee madow ah ee siyaasadda meesha ugu sarreysa ka gaara ayaa ku geeriyooday waddanka Switzerland waxa uuna soo noqday xogaayihii guud ee qaramada midoobay. ururka qaramada midoobay waa urur caalami ah oo ka dhexeeya dalalka adduunka kaas oo fadhigiisu yahay caasimadda New York ee waddanka Mareykanka. ururka ayaa la aasaasay sanadkii markuu ahaa 1945 si loo bedelo ururkii la oran jiray League of Nations. ujeedka iyo hadafka ayaa ahaa in uu ka shaqeeyo xiriirka wadamada iyo weliba inuu ka hortago dagaalka qarxa wadamada caalamka. waxaa soo maray xubno badan oo kasoo noqday xogaayaha guud ee qaramada midoobay, balse sheekadani waxa ay qusaysaa Kofi Annan oo ahaa ninkii ugu horreeyay ee madow ah ee xoghaye ka noqda ururka qaramada midoobay. Kofi Annan ayaa ahaa diblomaasi u dhashay waddanka Ghana waxa uuna ka mid ahaa shaqaalaha ugu caansanaa ee ka shaqeeyay qaramada midoobay isaga oo soo noqday xogaayihii 7aad ee qaramada midoobay. Annan ayaa dhashay 8 Abriil 1938 waxa uuna ku dhashay magaalada Kumasi ee dalka Ghana. waxa uuna ku guuleystay sidoo kale sanadka markuu ahaa 2001 bilada nabadda adduunka ee loo yaqaan Nobel Peace Prize taas oo ku muteystay dadaalkii dhanka nabadda uu ka sameeyay. Annan ayaa ahaa 80 jir waxa uuna noqday xogaayihii 7aad ee qaramada midoobay sidoo kalena waxa uu ahaa Afrikaankii ugu horreeyay ee jagadaasi qabta sanadii intii u dhaxaysay 1997 ilaa 2006. waxa uu ka tagay hal xaas iyo weliba 3 caruur. qaramada midoobay ayaa muujisay inay aad uga xun tahay dhimashada Kofi Annan.